يشد فربضن إن أنا كسبينين قبل اللدقن كذي معاملة ذي أوكلا محايا لي هدي معاملة قلفسن كل دقن تدي وبني آدم معاملة قلفسن بكاهور كنيسة معاصي اللي قد وقفك أو كل دقائق الدور بكل هذا قبل الدقن كذا نبى أورنشري عابدة عالمها يعني هدان معصيات قالوا أو شيء معصية اللي قلت الماما أن كل دقائق مركي بقولي كان كجرتها قبل دان كجرتها عن قبابوي يعني وحكي ما دبوير دقن حنبا كي ما دبوير ما عيدوا إني وحكي أنا قليبي مثل دمبجة ولا يقول عقابة يا مركب قبل دي بكون دقائق يسوي وحنا جالس هرجة تكون دقائق يسوي مركب واحد وجانسة معاصي قفك أو كسو قلي حتى بنانك كسو قلي قريجي سي حتى مركب دم بتكرر لنا يسارنتي مركب إن أنا معاملة قبل ده أنا عريرين oo shiddo iyo xasarad fara badan aanu qoorta la gelinin maxay la xayatadii guriga oo dhan ayaa jaxiim u bedelmaysa iyo naar u bedelmaysa sharcigu wuxuu amray ninka aabaha noqonaya ama u socdo dariiqi aabanimada inuu u socdo inuu go'aansado hadii jeeraale sida shariicada islaamku ay amartay mucaamalo wanaagsan inuu goosto inuu kula dhaqmo gabadha guursanayo waxa la yaab leh markuu guursanayo waa la qoslayaa waa la jacliyo waa la soo ordaya laakiin markii la isguursado ka dambow muxuu qofkii personality kale hoosta uga soo baxaya qofkii oo aha qof aan ahayn muxuu la soo baxaya oo jaabka uga soo baxaya waa wax in la isweydiyo u baahan weey waxa kale oo sharcigu oo amray in sida martaqana qofka gabadha la karaameeyo la yukrimuhunna illa karimun wala yuhinuhunna illa la'imun ما كرامي إلا مت كرامي شرف وصاحبه موجي إن أنت لما سيو نكو هدانو مركو من شرفات أهين محايلي دي ويسيلي ده نيساه ويسي بابا إيسا هدين مت بابا أسانو أو مركو رقورت أقلو إن لو إحسان سميه أباهن تاي قرآن كان أساسه ليه وعاشروهن بالمعروف قبله كل رقم معاملة وناكسن كل رقم قبدي haweenkii kula dhaqmo mucaamalo wanaagsan aabaha wanaagsan ninka saalix u noqon kara inuu aabo wanaagsan noqdo yaa kula dhaqmi karay ee nin kasta ardaal kula ma dhaqmi karo runtii hadaad aragto doqonku asaga haweenka ka adag bal yiraahdaa haweenkuna ayaga ka ag ninka diraca ayaga ka adag bal yiraahdaa ninka ragga haweenka ka adag laakiin doqonku asaga haweenka ka adag bal yiraahdaa hadaad aragto mid haweeneyda xaniba hadaad aragto waa doqon ogow marka doqon weey ها محايلي دلقاتكي laga rabay iyo hogaankii laga rabay iyo maanta ma arkaysa qiyaadadii laga rabay waa gabay kaasi waa doqon weey marka daayiman gabadhu ninkay sii fiirisay maarta ee xaqiisa ka filanaysa inuu yaraha hogaankii leeyahay asagu waa laga maarmaan weey arintaas iyada laakiin haday arkaan inay maarta waxba jir waxa weey marka isheedo ka soo dhacaya talada man laga ma dhageysto aabaha saalixa iyo zawjka saalixa ninka wanaagsan zawjnimada u soo baday dariiqeedii ku taagan oo caruurtiisa iyo xaaskiisa u wanaagsan daa'iman ma hoos galo ama uma leexdo inuu isticmaalo waxa la yiraahdo cunfiga dhibka iyo inuu gabadhii ciijiyo oo kale iyo inuu ku qallafsanaado mucaamaladeedii oo noqdo midaan jidii jahal loo dhaqmo aanan lahayn waa nin dibicsan oo markii iyadu ay xanaaqdo laga yaabo inuu u dhamriyo saxiix qof awliya ma jiro saxiix weey laakiin hadana aqligu mararka qaarkood wuxuu keenaya meesha hadaad adigu mas'uul ka taho tiri gabadhan wilaayadeedii markii aabaheed ka soo wareegtay aday kugu soo wareegtay weey haday kugu soo wareegtay marka wilaayadeeda ha xumaynin